halkaad wararkaasi ka dheehanaysaan saaxiibayaal waa muuqaal baahiyaha Garaa TV haatan wararka ka baxsan Soomaalida. Madaxweynaha wadanka Iran Xasan Rouhani ayaa fariin uu ku muujinayo dhibaatada xooggan iyo go'doonka haysta dalkiisa waxa uu u diray ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan. warqada uu madaxweyne Rouhani u diray magaalada Islamabad oo nuqul kamida ay soo xigatay warbaahintu ayaa ahayd mid calool xumo ay ka buuxdo isla markaana taabanaysa qalbiga taasoo ku sheegayo go'doonka dhinac kasta ka haysta dawladda Iran. madaxweyne Rouhani ayaa warqada uu u diray dalka Pakistan ku yiri Iran waxa go'doomiyay caalamka oo dhan. Mareykanka ayaa cadaadinaya dalalka reer Yurub ayaa sidoo kale iyaguna cadeeyay mowqifkooda oo la jirsaday Washington. waxaase la yaab leh in caalamul muslim iyo dalalkii carabtu ay ku daba fayleen Mareykanka oo ay naga taageereen isagoo raaciyay waxa isweydiin mudan Pakistan halkee bay taagan tahay. madaxweyne Xasan Rouhani ayaa sidoo kale ku yiri warqadiisa dadka reer Iran ayaa si tarab u la'anaya iyagoo la daaladhacaya caabuqa ba'an ee coronaviruska iyadoo ay sidaas tahay haddana dalkeena waxa ka heliyay caalamka oo dhan iyadoo ay saaran tahay cunaqabatayn caalamiya. ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa markii uu helay warqada ka timid magaalada Tehran waxa uu soo horjoogsaday warbaahinta isagoo muujinaya dareen murugale waxaana uu hadalkiisa ku bilaabay Mareykanka iyo caalamka oo dhan waxaan si cad ugu sheegaynaa in ay qaadaan cunaqabataynta saaran dadka iyo dawladda Iran ee ay ku habsatay dhibaatada weyn inagoo muujinayna in aanu garab taaganahay dawladda Iran isla markaana aan ka soo horjeedno cadaadiska ka baxsan bini'aadantinimada ee xukuumadda Washington. Aisha Faruqi oo ah afayeenka ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa u sheegtay warbaahinta Al Jazeera in markii golaha wasiirada ee dalka Pakistan ay soo gaartay warqadaasi ay dhammaantood aad u murugoodeen isla markaana ay amreen in si degdeg ah loo howlgalo iyadoo gargaar la gaarsiinayo dalka Iran. isla markiiba waxaa la magacaabay ayay tiri guddi ka shaqeeya arintaasi iyadoo la diyaariyay kumanaan qof oo ku xeel dheer dhinaca caafimaadka iyo sidoo kale qalabka la iskaga difaaco caabuqa COVID-19. dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Shah Mahmood Qureshi ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu sheegay in Mareykanku uu yahay mid aan aqoonin waxa loogu yeero bini'aadantinimada isla markaana si khaldan u isticmaalaya awoodiisa isaga oo dhibaatada ku fiirsanaya dadka reer Iran. waxa uu ka dalbaday dalalka caalamul muslimka in ay fidiyaan taageero bini'aadantinimo oo ay la gaarayaan dawladda Iran oo haatan uu si weyn u saameeyay caabuqa COVID-19 laakiin aan haysan qalabka la iskaga difaaco haba yaraatee. waxaa saaran cunaqabatayn caalamiya wadanka Iran iyadoo dhowr jeerna xukuumadda Washington ay kordhisay cadaadiskeeda ka dhanka Tehran.